Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawow daawada YouTube channelkayga. Maanta waxaa inii hayaa qiso aad u cajiib ah oo ku saabsan in Ilaahay aad tala saarato. Ugu horreyn intaan u guda gelin muuqaalkeena maanta, fadlan daawada haddii aad ku cusubtay YouTube channelkayga, subscribe dheh, furo calaamadda gambaleelka si uu kuu soo gaaro muuqaal waliba aan soo geliyo YouTube channelkayga. Aan u guda galno muuqaalkeena maanta. Nin wanaagsan ayaa waxaa laga buriyay ama laga ceeriyay shaqadiisa kadib markii lagu soo eedeeyay in uu yahay nin khiyaanoolo ah, wax isdabamarintana aad ugu dheereeya oo xirfadeeda aad u yaqaanin. Isla maalintaasina waxa uu noqday nin faqiir ah oo sabool ah, shiidna ah, xitaa aan awoodin inuu caruurtiisa cunto siisto. Habeenada ka mid ah ayuu kusoo laabtay gurigiisa kadib markii uu salaada cishaha kusoo dukaday masjidka. Waxa uuna arkay saddexdiisa caruurta ahayd oo seexseexatay. Waxa uu weydiiyey xaaskiisa, caruurtaydii salaada cisho ma tukadeen? Kadib xaaskiisa ayaa waxa ay tiri, guriga wax cunto ah oo noo taasha ma lahan, waxaana ka cabsaday caruurtu inay i weydiiyaan cunto. Waan ka aamusay, kadibna iyagoo salaada tukan ayay seexdeen. Waxa uu ku yiri xaaskiisii, kici oo ha tukadaan salaada. Kadib xaaskiisii ayaa waxa ay tiri, haddii aan kasoo kiciyo caruurtu way ooynayaan, cunto ayay i weydiisanayaan, anigna cunto uma haayo. Kadib aabihii guriga ayaa wuxuu ku yiri xaaskiisa, i dhageyso, aniga waajib waxaa igu ah in aan caruurtayda faro salaada. Irsaaqadana Ilaahay ayaa u ballan qaaday. Qur'aankana Ilaahay waxa uu ku leeyahay, wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir calayha, laa nas'aluka risqan naxnu narzuquka wal caaqibatu litaqwa. Ehelkaaga salaada far, kuna sabar, hana weydiisan irsaaqad, annaga ayaa ku irsaaqaynaa. Kadib xaaskiisii waxa ay ku qanacday hadalkii ninkeeda, waxa ayna aaday qolkii caruurteeda si ay u soo kiciso. Sikadiisa waxa ay ku aragtay oo lama filaan ah wiilkeedii weynaa oo akhrinaya aayad qur-aanka kariimka. Gabartii ku xigtay oo ah da'dii ku xigtay oo ka yareedna ay ka daba akhrisanaysa aayadihii uu akhrinayay walaalkeed ayada ka weyn. Cunugii ugu yarayna waxay aragtay isaga oo duceysanaya sida uu mar walba ku arki jiray waalidkeeda iyagoo duceysanaya. Kadib hooyadii waxa ay ku faraxday waxyaabihii ay aragtay ku aragtay caruurteeda. Kadib hab ayay siisay caruurteeda, waxayna u sheegtay inay soo weysaystaan si ay u tukadaan salaada cishaha jamac. Waa ay soo weysaysteen. Markii ay salaadii tugteen oo ay ka baxeen kadib, isla markiiba waxaa guriga soo gargaraacay mid ka mid ah dadka ugu taajirsan magaaladooda, kaas oo sida cunto aad u fara badan oo ka mid ah cuntooyinka ugu macaan ee magaaladooda laga cuno. Waxa uuna ninkii ku yiri, aabbaha iska lahay guriga, hoo qaado cuntadan oo siiso caruurtaada. Maanta waxa ay soo booqday mid ka mid ah taajiriinta magaalada. Casuumadan iyo cuntadan isaga ayaan u diyaariyey. Kadib intuusan cunin cuntada ka hor, waxaan isku khilaafnay arrimo ganacsi iyo qandaraasyo. Kadib waxa uu ku dhaartay inuusan cunto gurigeyga ka cunaynin, wuuna iga tagay gurigeyga. Anigana waxaan soo qaaday cuntadii. Waxa aana dhahay, qofka ugu horeeya oo iga hor imaada ayaan sii doonaa cuntadan. Qof faqiirana ma aana arkin oo iga hor imaada. Gurigiina ayaan hor imaaday. Mana aqaano wax maanta gurigiina i keena, maadaama aniga aan adiga ku aqoonin, gurigaagana aan maanta ka hor aan arkin. Aabihii guriga iska lahaa ayaa aad u dhoola cadeeyay. Waxa uuna dhahay, anigu waan aqaanaa qofka i kaa keenay, waana Allah subxaanahu wa tacaala. Maalintii xigtay waxaa aabihii soo wacay maamulihii shaqadii ka soo buriyay isaga. Waxauna u sheegay in eedeymihii lagu soo eedeeyay ay ahaayeen kuwo faalsa oo bug ah, haddana uu ka codsanayo inuu dib ugu soo laabto shaqadiisa, lagana abaalmari doono oo laga xaalmari doono wixii khaladaada oo dhib ah loo geystay. Kadib odaygii iyo aabihii ayaa ku farxay arrintaasi. Allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka waxa uu ku leeyahay, waman yatawakkal cala Allahi fahuwa xasbuhu. Intaa ayay ku eg tahay qisadeena maanta daawo.